waxaa lagu guda jiraa asbuucii xorriyadda Soomaaliya shalay waxay ahayd 26 Juun maalintii gobolada waqooyi ay xorriyadda heleen maanta waa 27 Juun inkastoo ay tahay maalintii xorriyadda ay heleen walaalaha Jabuuti haddana waxaa xoroobay oo maanta farxad iyo damaashaad ay u sugnaatay bulshada reer Gaalkacyo halkan aan taaganahay maanta waxaa lagu qasaasay 18 ka tirsanaa ururka argagixisada al-shabaab Allahu akbar 18 kooduba waxay qayb ka ahaayeen jariimooyinkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo 13 sano la soo dhaafay kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday dadkii indhaha iyo haldoorka u ahaa bulshada magaalada Gaalkacyo ha noqdaan culimaadiin ganacsato siyaasiyiin saraakiil ciidan nabadoonno haween iyo qof walba bulshada reer Gaalkacyo muhiim u ahaa dhiigii macna darrada lagu daadshay Gaalkacyo 13 sano lagu daadinayay maanta ayuu cadaalad helo oo soo ifbaxay tiradii ugu badneed ururka argagixisada al-shabaab looga toogto guud ahaan Soomaaliya ayaa maanta magaalada Gaalkacyo martigelisay qaybo kala duwan oo ka tirsan ciidamada Puntland ee geesiyada ayaa halkan maanta ku mariyay argagixisada al-shabaab dhibkii ay geysteen kol hore jawaabtii u dhigantay oo ahaa dil toogasho halkan maanta waxaa sidoo kale warbaahinta kula hadlay oo afmeer la hadlay taliyaha ciidamada qaybta Bilayska gobolka Mudug gaashaan la sare Muumin Cabdi Shire taliyaha ciidamada daraawiishta gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland gaashaan la sare Sharmaarka Sheekhdon labaduba waxay isku raaceen in dadka reer Gaalkacyo iyo guud ahaan Puntlandba aan mar dambe loo ogolaan doonin in dhiigooda ciyaar lagu daadsho qofkii argagixisada ka tirsan oo tan oo kala sameeyana cinqaabtiisu ay noqon doonto sida aad daawanaysaan iminka in hal mar tira ka badan 30 wiil oo ciidamada Puntland ay si wada jira ugu dabridaan bismillaah raxmaan raxiim maanta ay taariikhdu tahay 27 Juun waxaa la fuliyay 18 xukuumane oo ahaa khawaarijkii banaysanayay dadka dhiigooda sida arxandanada u leenaysay ayaga dhuumashay wax ku dilayeen laakiin dawladdu waxay u dishay si bareer ah nimanka dhuumashada wax ku dila waxaan oran lahayn dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug waa tuug dhuumanaya war hooy baa ku filan hadda kadib ha ka baqina waayo ciistaas arxandarada dadka u disho tuugnimada ku dilaysa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ilaahay mahadi ah maanta halkan inay ka dhacday qisaastaas oo ahay 18 xukuumane 18 xukuumane oo ku xukunaa dilka toogashada oo processkooda muddo u soo socday maxkamadiina u dhamaadeen inaanu wakiil uga noqonay dawladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ciidamada iyo shacab weynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dawladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay waxaan u mahad celinaynaa si weyn ugu mahad celinaynaa ciidankii ajarka shaqaystay oo camalka khayrka badan qabtay oo wakiilka rasmiga naga noqday oo gacan barakaysan oo sidii loo talagalay shaqada u qabtay waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fikira ummadan dhiigeeda inuu taadiyo waxa u dhameysay sidaas oo kale mana waabanayno sidoo hore yaa wax lama wadin yaa la degdegin waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo hawlahaas ku lug leh ama ka soo shaqayn jiray cid aanu deenaynaa ma jidho waxaan wax ku dilaynaa sharci iyo si dad balwadaba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaynaa ciidamada kala duwan ee qaybaha ee kala ah kuwaas oo xil saaraa fulinta amarka hawsha tan qaybta koowaad ee ciidanka daraawiishta qaybta 6aad ee ciidanka daraawiishta qaybta booliiska gobolka Mudug iyo qaybta asluubta gobolka Mudug si weyn bay shaqadooda uga soo baxeen waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu wax khayr siiyo iyaga iyo saraakiisha xukuumaysa iyo askarta dableyda caruurtooda iyo xaasaskooda aad iyo aad u mahadsantiin gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland gaashaan la sare Cabdullaahi Shire Maxamed ayaa halkan ka akhrinaya habka uu xukunku ama fulintu ay u dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 27 bishii 6 2021
anigoo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus wakiilna uga ah wasaaradda cadaaladda wakiil 18 xukumane oo lagu xukumay dilka toogashada ah waxa si wanaagsan ayay u dhacday dilkiina waa lagu fuliyey hawshuna si wanaagsan bay u socotaa ma sha Allah baanu leenahay kuwii ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland iyo dhammaan Soomaaliya dhibi jiray waxa weeye xaqii baa la waafajiyay waana la laayay ma sha Allah baanu leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaalkacyo cadaaladeedii ayaa soo ifbaxday guri walba oo gaalkacyo ku yaala maantay farxad iyo damaashaad iyo qosol ayaa ka baxaya waa guriyihii kal hore baroortii oo hintu ay ka socotay ma dhici doonto in qof ka tirsan ururka argagixisada al-shabaab intuu qof Soomaaliyeed uu dilo inuu haddana magaalada si nabad ah oo ku maro cadaaladu ha soo daahdo balse waxa la hubaa oo la isla qirsan yahay in maalin ay soo baxayso